abtirsiga Somaliland ee afar madaxweyne iyo afar dowladood xaasha xaaraan bay ka ahayd tan hadda iyaga xalaasha iyo xaragada u ah xaasha xujay ahayd wiilal ku xoog sheeganaya xilka abuud ummadda u dhiibtay xaasha xeerka kuma jirin xukunka dul saaran xaasha xujo kale ayay ahayd xaynta xoolaha ummadda baa xilka haya oo xalaashanaya jaalasiyaad iyo korneelka 30 sano kadib matalaya dabeecadihiisii halka wiilkiisuna isu muuqeekaysiinayo maslax siyaad bare balaadba waa abtiri Somaliland waa ka madaxweynaha caruurtiisu xukunka kursiga kula fadhiyeen shacabkana dibardhacsi dartii rasaasta uga cashirin jireen inay xukunka aabahood la qaybsadaan iska daaya yaa arkay Cabdiraxmaan Tuur ubad u dhalay oo muuqda garanaya yaa markhaatiga furaya 9 sanadood oo inay cigaal talinay wiilashiisii caynad ay ahaayeenba waqtiga cid dhaaya ka qaatay in rayaalana kaligii miyaanu talinay Axmed Siilaanyo miyaanu hal xidhaala ka dhigin aragtida wiilashiisii korneelkuna miyaan sanad isagoon joogin aanu xukunka kursiga ummadda u dhiibatay sheer qoys ka dhigin miyaan 30 sano kadib nabadgelyadii Somaliland inay yarabiita ku ciyaareen miyaan markii ugu horeysay taariikhda la arag madaxweynaha wiilashiisa oo isgarab ordaya waliba miyaanay ugu bahayn markii korneelkuna inankiisii korneyl ka dhigtay oo darajooyin degdega iyo xidiga aanu habeenna meel u soo marin miyaanu garbaha u surin korneelkii dhalay uu korneelka ka dhigtay Axmed Muuse Biixi miyaanu maanta isaga iyo shuftadiisu aabihii hubka noocyadiisa kala duwan aanu siin miyaan isaguna dadkii mudanta ahaa barxadda hoteelada ka midhaysanayn hablihii oo aan mid xidhnayn mudugna laga dhigay miyaan saqda dhexe sidii filimaanta lagu daawan jiray inta uu guryaha magaalada ka baxsan geeyo aanu shuftadiisa ku amrin aan daawadee suunka ku garaaca oo dabadeetana sidii muusiga raamka miyaanu qayladooda ku raaxaysan xildhibaanadii xasaanada lahaa miyaanu hadcad dariiqa ku rasaasay shuftadiisa inta uu u suul dhabaaleeyo miyaanay suuqa dhexdiisa ku garaacayn baaskoolada madaxa ka saareen jiidjiideen gaadhigina digandigaha ka dhigan cidda sidaa shaarica loogu galayaana miyaanay ahayn mudanayaashii lasoo doortay ee lama taabtaanka ah waxaasba miyaanu soo dhaafin oo qofkii aabihii soo hadal qaadaba sidii bacmadooda miyaanu suuqa ka dhex laalaadsan Axmed Muuse Biixi waa wiilka dhowr sano gudahood 30 sano Somaliland waxay soo dhisaysay oo ah nabadgelyo ugu bedelay Shuftaland isagoo ku awood sheeganaya xilka aabihii ummaddu dooratay waa wiilka warbaahintii sawirka quruxda badan ee Somaliland dunida u lalin jiray hadda raxan u gaarsanaya cidda la beegsanaya dhammaantood waxay ka soo wada jeedaan hal beel oo ah beesha bariga Burco iyada maanta Hargeysa loogu abtirinayo waxaa la kala aarsanaya shax siyaasadeedkii ninka dheer ee Gurani Muuse iyo Kulmiye ku kadab gooyay ciilqabnimadii ayaa maraysa ka jara dhalinyarada beeshiisa sababtoo ah isagoo laga hinraagay dadkii nabadda ay beerteen ku seexan jiray waxay warwar ka qabaan inanka yare korneelkii dhalay oo korneelka ka dhigay saxaafadii xorriyatul qowlka dadka ugu warami jirtay nabadgelyadana astaanta u ahayd maanta mid kasta wuu hubaysan yahay waxa aanay u ballansan yihiin inay iska difaacaan inanka yare aabihii ummadda ku carbiyay laama dowladeed oo ku dhacay inay tallaabo ka qaadaan Somaliland kama baabuurna MMTV oo loo soo gaabiyay magacyada Maxamed oo ah Maxamed Cabdi Ilig iyo Mubaarak Taani oo ah xogayaha gaarka ee madaxweynaha oo sheer ku ah telefishinkan ayaa sawir fooriyeen ah la soo galay korneelka dhalo korneelka ka dhigtay la soco xalqada dambe ee barnaamijka Skatus oo MMTV laftarkiisa ku falanqeyn doona